وعن أو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena habeenimana waxaa kamid ah wada hadal cusub oo u bilaabanaya ahlu sunna iyo filla Soomaaliya oo ka bilowday deegaanada Galmudug iyadoona lagu wado in Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo gudoomiyaha ugu sareeya ahlu sunna Macallin Maxamuud dhawaan la geey doono magaalada Muqdisho si wada hadalladaasi loo soo gabagabeeyo arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli maanta ay ahlu sunna kuraas ka heshay magaalada Dhuusamareeb warar hore oo sheegaya in ahlu sunna iyo Galmudug uu heshiis u bilowday ee banaanka u soo baxeen haddaba maxaa looga wada hadli doonaa kulanka ahlu sunna iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo maxay tahay qorshaha uga yaala madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xubnaha mucaaradka ku ah ee la dagaalamayay baryihii ugu dambeeyay dhinaca kalena ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay magaalada Bu'aale ee xarunta Jubbaland markii ugu horeysay ay ciidamada federaalka Soomaaliya gaareen magaaladaasi iyadoona war farxad leh uu ka soo gaarayo shacabka Soomaaliyeed iyadoona muddo 10 sano ah ay ku fakarayeen maalin in gacanta lagu dhigo magaalada xarunta u ah maamulka Jubbaland balse Axmed Madoobe ay caqabad ku noqonaysaa hadii la qabto magaaladaasi maadaama ay ishayaan dowladda federaalka Soomaaliya hadii madaxweyne Farmaajo soo laabto Bu'aalana gacanta ay u soo gashay dowladda federaalka Soomaaliya maxaa dhici doona caqabad caynka ah ay ku tahay madaxweynaha maamulka Jubbaland barnaamijkeena ayaan si faahfaahsan ugu soo bandhigi doonaa iyo doorashada xildhibaanada ka soo galaya gobolka Gedo oo bari bilaabanaysa iyadoona Jubbaland loo diiday inay gacan ku lahaato doorashadaasi maadaama gobolkaasi uu gacanta ugu jiro xubno ka amar qaata dowladda dhexe sidee ayay u dhici doontaa doorashada la doonayo inay ka dhacdo gobolka Gedo ee Jubbaland wararkeena ayaan ku qaadaa dhigi doonaa sidoo kale doorashada gobolka Hiiraan halka ay marayso iyo xubnaha lagu wado inay ka soo galaan dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xisbiga nabad iyo nolol wararkeena kalena waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo dagaaladu dib uga soo cusboonaadeen iyadoo wali BSF iyo Puntland ay ishayaan heshiisyo hore oo la gaaray ee ka baxday maamulka Puntland oo hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani haddaba maxay yihiin qodobadaasi sidoo kale maxaa haysta xildhibaanada magaalada Boosaaso lagu soo dooran lahaa qodobadeena ayaan iyana ku faahfaahin doonaa qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan daawo hadii ay tahay mar koobaad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe dhoo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Macallin Maxamuud Macallin Xasan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada Muqdisho maalmahan soo aadan iyadoona casuumad rasmi ah ay ka heleen filla Soomaaliya kadib markii wada hadal muddo u soconayay uu soo gabagaboobay wada hadalkan ayaana la doonayaa in si rasmi ah loo shaaciyo waxayna ku soo aadaysaa xilli ahlu sunna ee xildhibaano taageersan dowladda federaalka Soomaaliya maanta ka heleen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug Cabdisamed Macallin Maxamuud oo ah wiilka uu dhalay Macallin Maxamuud Macallin Xasan ayaa maanta ku guuleystay kursi kamid ah kuraasta maamulka Galmudug sidoo kalena waxaa jira xubno kale oo kamid ah ahlu sunna oo maanta lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug kulankan ayaana waxaa soo qaban qaabiyay taliyihii hore hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo in dhaweyd bay heshiis dhex dhigay Saadiq John iyo madaxweyne Farmaajo sidoo kalena in dhacda iyo madaxweyne Farmaajo siisiyay xubnihii mucaaradka ku ahaa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa hubeysnaa ayaa muddo maalin isu soo dhiibaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoona heshiis la galaya madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa isoo dhiibitaanka Sheekh Maxamed Shaakir iyo Macallin Maxamuud ayaa imaanaysa xilli xasaasi ah oo dalku u diyaar garoobayo doorasho mucaaradka ayayna dhabarjo ku tahay maadaama ay doonayeen inay adeegsadaan oo isticmaalaan xubnahaasi hadii loo baahdo dagaal in lagu qaado dowladda dhexe balse lafcad ay toobin ku hayaan mucaaradka maadaama aysan haysan qof ay isticmaalaan haddaba wararka ayaa sheegaya in ahlu sunna loo ballan qaadi doono xubno cusub oo golaha wasiirada ah waa hadii uu soo laabto madaxweyne Farmaajo sidoo kalena uu ra'iisul wasaare noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor sidoo kale waxyaabaha loo ballan qaaday Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxaa kamid ah in loo gacan gali doono maxkamadda ugu sareysa dalka waa sida ay warbixinadu sheegayaan balse kulanka ahlu sunna iyo filla Soomaaliya ayaan ka dhur sugi doonaa hadii ay yiraahdo
dhinaca kalena ciidamo ka amar qaadanaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa gacanta ku dhigay dagaal saacado socdo kadib magaalada Bu'aale ee xarunta maamulka Jubbaland. dagaalkan ayayna ciidamada dowladdu qaadeen xalay xilli habeen ah maadaama in muddo ay dowladdu ku taamaysay inay gacanta ku soo dhigto magaaladaasi aadka u weyn taasoo muhiim u ah shacabka reer Jubbaland. ciidamadan ayaana asbuuc ka hor laga soo dejiyay magaalada Muqdisho iyadoo laga keenay dalalka Eritrea, Turkiga iyo Russia. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka go'an tahay in deegaanada muhiimka ah ee ka maqan dowladda dhexe ay gacanta ku soo dhigaan, balse warar kale ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu qabsado magaalada Bu'aale si uu uga dhiso maamul cusub oo la yiraahdo Jubbaland. Axmed Madoobena qadka looga saaro maadaama Axmed Madoobe uu ku eeyahay kaliya 30 kiiloomitir oo ka mid ah deegaanada Jubbaland. Axmed Madoobe ayay dowladdu aqoonsatay hal sano oo ka mid ah inta madaxweyne Farmaajo uu xilka hayay maadaama sanadkii uu dhamaaday welina uu xilka iska joogo. ma ahan madaxweyne uu aqoonsan yahay madaxweyne Farmaajo. haddii xukunka uu soo laabtana wuxuu qorsheenayaa in madaxweyne cusub loo sameeyo maamulka Jubbaland hadda uu hoggaanka u hayo Axmed Islaam Axmed Madoobe. dhinaca kale xildhibaanada ka soo baxaya magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo ayaa lagu wadaa in dhawaanahanba ay bilowdaan iyadoona qorshaha koowaad uu yahay in xildhibaanada ugu horeysa uu bari doorashadoodu bilowdo. xildhibaanadan ayaana la aaminsan yahay 100% inay yihiin kuwa taageersan madaxweyne Farmaajo maadaama gobolkaasi si fiican uu taageero xoogan ugu leeyahay uuna dhawaan ka dulqaaday cadow in muddo ahba si xoog ah isaga haystay waa shacab waa dowladda Kenya. doorashada bari ay shacabka Soomaaliyeed sugayaan waxa ka soo baxa iyo xildhibaanada la soo doorto. dhinaca kale wali waxa taagan xiisada u dhaxaysa BSF iyo Puntland. dhinaca kale xiisadii magaalada Boosaaso oo mar kale soo cusboonaatay kadib markii dagaal kale uu qarka u saaran yahay inuu ka qarxa magaalada Boosaaso ay isku hayaan BSF iyo maamulka Puntland. dagaalkan ayaana salku ku haya doorashada xildhibaanada ka soo galaya baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kadib markii uu ku fashilmay Saciid Cabdullaahi Dani inuu xalliyo khilaafka u dhaxeeya isaga iyo BSF. ismadoona ay soo saareen warmurtiyeed ka dhan ah madaxweynaha maamulka Puntland. dhinaca kale gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa lagu wadaa inuu ka bilowdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka. xildhibaano cusub ayaana ka soo baxaya waxayna wararku sheegayaan in Fahad Yaasiin uu yahay xildhibaanka ugu horeeya ee nabad iyo nolol ah ee la doonayo in lagu soo doorto magaaladaasi walow qaar ka mid ah dadka deegaanka oo maleeshiyad ah ay doonayaan inay arrintaasi ka hortagaan balse dowladda federaalka ayaa dhawaan ciidamo geysay. haddaba halkaasi waxay nooga wararkeennii habeenimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena Calanka TV subscribe oo furga beelka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.